shipping Soomaali run miyaan mise waa been haddii aad maqashay ganacsiga drop shipping oo lagugu sheegay in lacag si fudud looga sameeyo ama aad aragtay dad leh hal habeen ayaan hodan ku noqday maanta waxaan eegi doonaa maxaa ka run ah ganacsiga maxaasa buunbuunisa oo ku jira fiidiyoga waxaad ku ogaan doontaa drop shipping run ma yahay mise waa been yaa ku guuleysan kara ganacsiga drop shipping iyo yaa ku fashilma ama ku fashilmi doona ganacsigan haddii aad rabto ganacsi online oo dhab ah fadlan daawo muuqaalkan ilaa dhamaadka oo si fiican aad doonayso inaad drop shipping wax badan aad ka ogaato wala lagu horeyn YouTube-ka waxa kaga hadalnaa ganacsi online sida loo bilaabo iyo online business iyo horumarinta shakhsiyadda haddaad jeceshahay mawduucyada fadlan waad nagu soo biiri kartaa muuqaalka like sar sidoo kale subscribe sar si aad muuqaalo badan oo runtii ku anfacaad u hesho waxaan ku hormari doonaa waa maxay drop shipping drop shipping waa ganacsi online ah oo aad alaab iibinayso adigoo aan kayd lahayn waa ganacsi online ah oo aad iibinayso alaab aan adigu aadan hayn ayaad iibinaysaa sidee u shaqeeyaa adigu tusaale ahaan waxaad furanaysaa ganacsi online ah ama waxaad furanaysaa website online ayaad furanaysaa waxaad soo gelinaysaa alaab ay hayaan shirkado kale sida AliExpress oo kale oo Alibaba uu iska leeyahay qaybta jumlada ah ayaad alaabta soo gelinaysaa marka alaabta ka soo qaadato suuqa ama supplier-ka alaabta iibinaya marka alaabta ka soo qaadato alaabta website-kaaga soo gelinaysaa kadib xayeysiin baad u samaysanaysaa marka alaabta adiga laga iibsado alaabtii adigu tusaale shaygan hadii aad ka soo qaad aad $5 aad ka soo aad suuqa uu ku yaalo aduguna waxa si saarsanaysaa faa'iido tusaale $10 oo kale aad ku iibinaysaa qofku markuu adiga online-ki store-kaaga waxa ka iibsanayo $10 buu ku dirayaa leena aduguna $5 ee Alibaba laga siinaya ama AliExpress laga siinaya baad u diraysaa aduguna waxa weeye $5 baad la haraysaa kadibna alaabta waxaad ku xiraysaa qofka address-kii uu qofku lahaa waxaad u gudbinaysaa supplier-ka alaabta iibinayay kadibna supplier-kii baa alaabta u gudbinaya oo qofkii u dhoofinaya adigu faa'iidadaadi baa qaadata oo meel xaad joogtaa adigu dabcan dilaal oo kala tahay si aad u fahanto dilaal kii alaabta iibinayay ma tihid kii iibsanayayna ma tihid ee kii u dhaxeeyay baa tahay marka meel dhexe ayaad faa'iidadaada ka qaadanaysaa markuu ugu celiyo sida uu shaqeeyo waxaad furanaysaa dukaan online ah macmiil haddii uu ka iibsado alaabta waxa si toos ah u diraya supplier-kii alaabta hayay adigu waxa qaadanaysaa oo faa'iidadii ku saarnayd tani waa fikradda guud ee drop shipping uu ku shaqeeyo haddii aan isla fahanay marka drop shipping inuu yahay alaab la iibinayo hanti aad gacanta ku hayn balse uu supplier-ku isagu dhoofinayo adiguna aad kaliya faa'iidada aad ka dul qaadanayso oo aad dilaalayso oo aad commission-kaaga faa'iidada aad qaadanayso haddaba drop shipping run ma yahay mise waa been haddaan toos u iraahdo drop shipping ma aha been laakiin qof walba uma shaqeeyo drop shipping waxaan si toos ah u leenahay ma aha ganacsi been ah laakiin waa ganacsi aan qof walba u shaqeyn aan eegno marka waxyaabaha aad maqasho ama waxyaabaha laga sheego drop shipping waxyaabaha beenta ka ah in lacag si fudud looga sameeyo arrintaasi waa been in adigoon wax baran guul degdeg aad ka gaari karto drop shipping-na waa been in qof walba hodan ku noqon karo oo si fudud u lacag dhaqaale badan ku sameyn karana waa been intaasba dabcan waa waxyaabaha inta badan dadka xayeysiinaya iyo dadka koorsooyinka drop shipping bixiya ay ka sheegaan intuba waa in been ah oo uu qofka hadii uu arrintan raaco hadhow markuu meeshii tago intii la sheegay uu ka waayo wuxuu oranaya ganacsigan waa ganacsi aan jirin marka sababtu waxa weeye waxa loo sheegay baa been ahayd ganacsigan maxaa ka run ah marka waa ganacsi shaqeeya hadii si sax ah loo sameeyo qofku hadii si talaabo sax ah uu maro runtii waa ganacsi shaqeynaya ganacsigan wuxuu u baahan yahay waqti barasho iyo sabir waa ganacsi u baahan aqoon buu kaga baahan yahay drop shipping marka rabto inaad barato aqoon buu ka rabaa waa ganacsi u baahan marka waqti inaad geliso waqti badan inaad geliso oo store baad dhisanaysaa in lagu barto waqti badan baad gelinaysaa sidoo kale sabirna waa u baahan tahay dad badan ayaa ku guuleystay kuwa badanna way ku fashilmeen waxa ka runtaana waa sidaa dad badan oo dhaqaale fiican ka sameeyay oo bishii 4,000 5,000 10,000 ka faa'iida oo dhaqaalaha ka sameeya way jiraan dad intay galeen oo iyagu ay kharash galeen oo website ay samaysteen waxba ka keeni waayo ku fashilmayna way jiraan marka labada qoloba way jiraan waana run ganacsigan waa ganacsi jira waxaan arkaynaa sababta dad badan ay u fashilmaan maxay tahay runtii waaniga ganacsigani waa run ganacsigan waa ganacsi aan been ahayn laakiin waa ganacsi aan cid walba u shaqeyn marka sababta dad badan ay u fashilmaan waxa weeye sababaha ugu waaweyn ee fashilku waa waxay rabaan lacag degdeg ah qofku tusaale markuu soo galayo drop shipping concept-ga iyo aqligiisa guud waxa ku jiraba lacag degdeg oo la xaabinayo hadii uu waayana qofkii ganacsiga ma sii wadayo waana fashilka keenaya waxa qofku uu doorto inuu doorto alaab qaldan oo aan suuq lahayn
haddii alaab qaldan oo aan suuq lahayn aad doorataa waxay keenaysaa in lagaa iibsan waayo oo aad waxa weeye wixii aad rabtay inaad gaari weydo waxyaabaha kale oo fashilka keena waxaa ka mid ah waxba kama fahmaan marketing iyo adiska qofku waxaan marketing baa loo baahan yahay xayeysiin qofkii marketing iyo xayeysiin waxba kama fahansana waxyaabaha fashilka keenaya weeye waxay isdhiibaan marka ay khasaaro yar ay arkaan tusaale in lacag bay galeen ama iyaga kharash bixiya ama xayeysiin waxa laga yaabaa $100 xayeysiin aad bixisay waxba kama soo noqon dee qofkii isla markii waa isdhiibaya waa ka baxaya marka khasaaradu runtii waa arrin haddii adkaysi uu qofku adkaysto faa'iido keeni karta marka ganacsi kasta wuu adag yahay bilowga laakiin dropshipna sidaas oo kale weeye ganacsi kasta sida ay u adag tahay marka la bilaabayo in guul iyo guul darraba uu keeni karo sidaas si la mid ah ayuu dropshipna dabcan sunnahaas ayuu la wadaagaa marka afar qodob baan kuu sheegay oo keenaya ganacsi dadku inay ku fashilmaan kow dadku waxay rabaan lacag degdeg ah taasna waa waxaan dee hore loo helay waxay doortaan alaab qaldan oo aan tayo lahayn taasna waa arrin keenaysa waxba kama fahansana marketingka adiska waxyaaba keenaya inay fashilmaan waxay isdhiibaan marka ay khasaaro yar ay arkaan yaa ku guuleysan kara marka ganacsigan ama dropship yaa ku guuleysta adigu waad ku guuleysan kartaa haddii aad qodobadan samayso diyaar u tahay inaad barato ganacsigan inaad barato aad diyaar u tahay fahanto marketingka iyo qaabka suuqgeynta samayso natiijooyin badan ama tijaabooyin badan man ka wada tijaabooyin badan aad samayso oo wixii aad ku celceliso samir inaad yeelato naftaadana horumariso inta haddaad isku darsato runtii waad ku guuleysanaysaa xasuusnow ganacsigu ma aha nasiib iyo waa xirfad iyo aqoon mar walba maskaxda ku hay dhowr kan qodob ee ka saacidayna ganacsiga dropship ku guuleysada waxa weeye diyaar inaad u tahay inaad barato oo wixii aad fahanto oo waqti geliso inaad fahanto marketingka iyo qaabka loo suuqgeynayo suuqgeynta aad barato inaad samayso tijaabooyin badan oo wixii aad ku celceliso maanta hadduu kuu shaqayn waayo oo biri aad faa'iido weydo saadama faa'iido weyd inaad tijaabiso ku celceliso si aad guul uga gaarto samir inaad yeelato iyo inaad naftaada horumariso aqoon badan iyo khibrad badan aad guuleysato talada muhiimka aan bixinayna waxa weeye haddii aad rabto inaad ganacsiga dropshipping aad bilowdo ha ku degdegin ganacsiga degdeg uma baahna baro ka hor intaadan lacag gelin ka hor baro iska ilaali dadka ku ballan qaaday in lacag fudud si degdeg looga helayo u fiirso horumar inaad ka gaari karto ganacsigan iyaduna waa muhiim oo aad dulqaad yeelato aad sabirto gabagabada waxaan ku gabagabeynaynaa haddaba su-aashii markaa ugu dambeyn markaa inta aad soo fahantay niyadaada maxaa ku jira dropshipping run ma yahay mise waa run laakiin waa run aan cid walba u shaqayn qof walba kuma guuleysan karo taasaa keenaysa qofkii marka uu ku khasaaro inuu yidhaahdo waa been laakiin ganacsi waa ganacsi jira dunida ka jira ganacsi shaqeeya shirkadaha iyo supplierska alaabta soo sare ay ku tiirsan yihiin dad badan oo guryahooda jooga oo xayeysiin sameeya oo runtii website dhista oo runtii iyaguna dhaqaale ay ka sameeyaan laba qolob ay isku tiirsan yihiin haddii aad rabto fiidiyoyo kale oo ku saabsan ganacsiga online sida loo bilaabo ama e-commerce ama horumarinta shakhsiyadda ama horumarin nafeed subscribe saar channelka like saar fiidiyowga faala ku reeb aragtidaada waxa aad dropship ka aaminsantahay iyo waxa uu yahay iyo haddii aad bilowdo caqabad ay ka qabsatana comment-ga nagula wadaag iyo haddii aad jeceshahay inaad mawduuc ka soo hadalno aad ba u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.